annaga uuna hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka qaranku ujeedka safarkeegan oo ka soo bilaabmay magaalada berbere xarunta gobolka saaxil shiikh iyo burco iminkana ayna awood weyne ku joogno waa shaqooyinkii qaranka ee mas-uuliyiinta qaranku ay gobolada ku marayeen waa xaqiijin la xaqiijinayo mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda waa kormeer iyo mashaariic cusub oo la dhagax dhigayo mashruucan JPLG-ga ee hogaamiyay madaxweyne ku-xigeenkuna labadii muddo xileed ee xisbiga kulmiye tirada dalkan hayay mashaariic najaxay oo la mahadiyay baa laga qabtay madaxweyne ku-xigeenkuna wuu ku amaanan yahay waxaa ka go-an xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici in qarankan la horumariyo oo la gaadhsiiyo wadamada caalamka waxa halkan loo marayo ee hawsha loo wadana waa inta magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed muddooyinkii kala dambeeyay xisbiga kulmiye horumar weyn oo muuqday mashaariic mugle baa laga qabtay muddaxileedka saddexaad iyo afraad ee xisbiga kulmiyena waxaan rajaynayaa shidaalkuna soo baxo Oodweynena ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu waaweyn qaranka ee ugu qiimaha badan annagu taasaanu wadnaa taasaanu ku hawlanahay haddana wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeyntu waxaanu halkan u maraynaa si waafaqsan xeer nidaamyaha kala xadaynta xukuumadda xeer number 17/2015 waxa weeye in ay wasaaradda howlaha guud mas'uul ka tahay hantida maguurtada ee dawladda isla markaana waajibaad ka saaran yahay tayada dhismayaasha si aanu taa u xaqiijino himilada madaxweynaha u fulino uga dhabayno barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee waqtigii ololaha waxaanu u maraynaa halkan waxa weeyaan doorkeygii waajibaadka wasaaraddeeda reer Daadmareed reer Oodweyne soo dhaweynta waan uga mahadcelinayaa horumarkay ku tallaabsadeen iyo tubta toosan ay haystaan oo ku hambalyeynaya salaamu calaykum wa rahmatullahi